marka dhaqanka Soomaalida waxyaalaha aad ka baratay oo runtii aad jeclaatay ama aad dhibsatay maxaa kamid ah oo dhaqanka markii la dhaho dhaqanka wixii ku saabsan dharka cuntada iyo wax oo hees taas aniga weligay problem ma qabi jirin waan jeclaa dharka Soomaalidu mid kaleeto waxa waan fahmi jiray waa kuleel waay naagaha waxay qaadan dhar khafiif ah oo marka anigana waa guntino qaadan jiray iyo wax dharka Soomaalidu way iga yaaban maxaa naagtaga guntino qaratay cuntada أو أنت كلام هليست وهي سوق هليست مركا خدا برتي وهيلب كلام مسواه وأنت كلام سومالي أنت عن جوجني وخانو برني وأنت أصب وليبا تاس كم هرنا وخوا ريليجن كم هرنا أنا قلنا نيجا مسلم وخالي شيء نيجا مسلمة أديها مسلمتي مش هيك لا إله إلا الله ومسلمة تاي صح بركة قول وحيس مسلمين تاي أنا قلت أسأل الجرني وراعين عادي مركا سومالي مركا جوكتي يعني واحد هيد قف أو سيدي سومالي عمل أولى بيست وراشينكي سومالي وكلا سميناي أنا قاعد سمين راشين سومالي سبب تو تاس ودن كي جوكتا سومالي وهو قرنيال وهي أي أونين وسوب أي برتين وهو أنا قد محاز بدلنا وهو فعلا لهينا نرعنو تاس أنا قاعد قادني وهو هيلبك سيدي أي كارجين يوهو أتكا يوهكله يعني أي بجرين أنا قلنا استعماله وأنا قلنا دكان وهو أجنبي متجرين. مركا وكوف ضاي سوما يعني إن دكانك وهو أنا قلنا ساسي كوف ضاي إن أنا برتو. وأنا جعلاتك. وأنا جعلاني. وخبرنا أن أركي. مركا ما دام دكانك سوما ضحك شيء. maxaad u jeclaatay oo raashinka oo kale Soomaalida maxaad u jeclaatay oo sameeyay jirtay adiga horta waxaan u sheegay waxa way Soomaalidu waxay jiraan dhaqanka oo cuntada had oo fiican ah dhinaca hilib badan hilibka way jecelin waska jecelin laakiin maalin kasta ma onaan mis waxay akhday onaan wax yar ah taas caafimaadka fiican ani way aabaan taas caafimaadka fiican qudradda ay onaan anagana on jireen taas caafimaadka fiican marka waxaanu fiirnay wixii caafimaadkaaga fiican waa qaadanay waa xalo badan ma onin waa iskiilaalinaysa ma aan badan ma onin marka macnaha raashinka magacu kala leeyahay مثلا يعني شيء oo markasto nidaada ku soo dhacay oo aad sameysay jirtay ama soo iibsay jirtay maxaa kamid ah hilibka noocyo loo sameeyaa caanaha way noocyo badan yihiin raashinka la cuno naftirkiisa waa qaybo kala gedisanaa jiro oo dhaqan ah marka waxyaalaha aad ku saameeyay oo badana aad cuni jirtay oo ilaa hadda xasuusato maxaa kamid ah horta waxaan ku sheegay وهو أنا جا إنتان سوماليان جوجني وهو سوق وان تجني لكن أنتظر راشينك مركزتا أنا جن ما كوري كرن وأنا جوارن جوجتي الصومالي أيام سيف أنا كوري هيدا كو كرنيس يا هيدا كرنيس وهي كرنيس أنا أني وانجي على ده لكن هلب كدايل وانجي على دايدا هلب كدايدا أوكي أنا هو كله أنا جيل أنا لو أنا إحساس مجيل ولي بوخان أركي أنا لو ووخ كسو قاشن بنانجا أنا سماه حالين وأنا ما في أنا صح سكدا فوا أنا جيل في أنا ما في أنا جيل وحنا وحوالين تيرير وقرع مركز تاس نضيف واي أنا قلت تاس وليني ويرون ليتي واجرتي مركا Soomaali marka joogto kale dhaqanada Soomaalida waxa kamid ah mesela markii ay wax qabaan sida mesela aroos oo kale ama tacsiyo kale diriskaaga markii ay wax qabaan oo lagu soo waca oo waa lagu yeero wax lagu casuumay inaan ka soo qayb gasho marka ma tagi jirtay adiga meelaha laga casuumo marka aad tagtana dadkii aad dhax gasho oo mesela aroosidoo kale sidee ayaad noqon jirtay marka wax badan baan tagay وخبرن بالي أسيومي وهو فستوين كلدون بيجرين ميل أو جيل قالي مساري وهو سوق اللي كياني مركا وقت استوى ناركي
فستون ووين وسيدي وهو يا عروسك وكلا عروس وكلا هالمر وان تعسيد جوجي وكلا. وصدق بري صدق بري صدق بري أوكي. وكلا صح. وان سجوجني وكلب كستا نو كستا الكري وقدرات وخم معانا ايان لكيني وهي اني ولقي وما اركي جرين تاس الكيابي لكن أنا جوا أنت ده يدرس ما بدنا وهي كأني واحد دمي تسمعونه أنت بدنا زائد مونه اوكي لكن واحد دمي مركزته marka dadka markay ku arkaan adigoo Soomaali ah hadana yani qof asalkeeda yani ruush ah oo meesha kala soo qayb gasho ma kugu mashquulayeen badanaa dadka marka wadada socoto kala suuqyada kale ama markii lagu casuumo adiga ma kugu mashquulayeen inay ka sheekeeyaan badanaa mise waxa ahayn dad oo agtooda caadi ay ka tahay qofka ajnabiga markay ay arkaan Soomaali ku hadlayo waxaan arkay waqti kala duwan markii Soomaali aan mid waxa waqti fiican buu ahaa wa Soomaalidu waa la saaxiibtay ruush markaas markii la arkay waxay sheegeen adiga ruush ma tahay oo fiican صح waxaan arkay saddex oo shan sano kadib situaatsi waxa si kale waaye ويسبدل marka way isbedelay marka waxay sheegeen ruush ma tahay bloha waa si xun baa tahay اوكي laakiin inta badan dadka aan arkay صح. agtayda oo joogay dad fiican waxay rabeen inay ogaadaan sida aan deganahay waxaan samaynaynaa meeshaan ka dhashay aruurtii maxay sameeyaan magacadoodii yaay kabaa markaas su'aalo fiican bay ahayn inta badan waa bartay afka haddii la fiiriyo dadkaan la hadlay waxaa jira dad xun ah يا ملك استاجران دتك كوي اي تمين اشيغن waxa isnidaam sma qabtaa waxa صح صح marka taas waa marka markii la fiiriyo Soomaalidu waxay aad yani caan ay ugu yihiin isbooqashada مثلا هذه xaafadana degan tahay wixii diriskaaga ah islaantu maanaysaa cidaan soo salaamaysaa way ku soo bixi cidaan kale soo salaamaysaa marka adiga marka xaafadaad ku nooleed Soomaaliya magaalada Muqdisho dadka diriskaaga ah ama dadka caamatan Soomaalida ma u tagi jirta adiga saas oo kale maadaama dhaqankii aad dhaxgashay dad soo salaami jirto diriskaaga ayaga ma ku iimaan jireen markii ku yimaadaan qaab noocee u soo dhaweey jirta waxa inoo imaan jireen dadka qarkood inta badan waxaan la xiriirin dadka oo deris oo albaabadayni ka soo horjeeda inta badan aruurtayni waa isla ciyaar jireen kuwa kale waxa manug baqeen mise waxa u maleena anigana waxa qof oo caadi ah ma ahayn oo marabin igu fiiriyeen marmar qarkood aruurtoodii soo direen si aruurtayda dilaan marka way ku tijaabinayaan way tijaabeen maxaan waxa maxaan sameynay qaday waxa geedaheed waxa bacbiyaan mise wax kasta way ikumeeyeen laakiin inta badan dad fiican deriska no qof kasta kuma imaan karo waa inaad la saaxiibtaa mise inaad la hadashaa صح haddii dadka aniga jeclaay dadkii waxa way yaasiumaan markaas waxa way xiriirkaas socday laakiin waqti dheer ma aha sababta aniga baxnay dadkii baxeen mise